maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ay wafdi u hogaaminayo ayaa safar maanta ay ku tagi lahaayeen dalkaasi Qatar ka baaqsaday kadib markii madaxweynaha laga dalbaday inuu xaliyo khilaaf soo kala dhaxgalay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. madaxweyne farmaajo ayaa la sheegay sidii xal loogu gaari lahaa khilaafkaasi dartiis inuu u baaqsaday safarku maanta ku tagi lahaa dalkaasi Qatar kaasi oo dhawaan la sugayay. khilaafkan ayaa la tilmaamay inuu curyaamiyay howlihii dawladda kadib markii lagu mashquulay mooshin. wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in intuu ka xalinayo khilaafka iminka taagan uusan madaxweyne farmaajo safar dalka dibadiisa uusan u bixi doonin maadaama golayaasha qaar ee dawladda Soomaaliya uu khilaaf soo kala dhaxgalay. safarka uu ka baaqsaday madaxweynaha farmaajo ayaa la sheegay in mashruucyo horumarineed ee labada wadan uu ku soo kala saxiixi lahaa wadankaasi Qatar. sidoo kale baaqashada madaxweynaha ayaa noqonaysa safarkiisii labaad uu ku tagi lahaa dalkaasi Qatar kadib markii safarkiisii hore uu ku tagi lahaa dalkaasi uu baaqsaday bartamihii sanadkii la soo dhaafay. Cabdiraxmaan Kambala, Kalson TV, Muqdisho.